انت ما انت هايسكرين انتي كربا يوسن كوغوريدين كلمدهين قصلك كل القاص هاو ارك برنامج كفتن كايسبورتس كوا برنامج أحلى وتصوغ لا تدودا في نمو ساعة جيس كأفريقيا كابتنك حالكو كحن يهاي دم الجديد حسن شيخ محمود يا اسبوعا كلما كوحدي سلا عيارتي نادي دفاع وين ورشيق يونايتد قرعيل سيتي اف سي دايني لا دوقان فيسبوك دوان لو سمي ايانا كو قنعيه كوحده ورشيق يونايتد ان لاعب كودي مونغاب بوس لوغا دايداي دونو حرده توبركو خلكه فيلا صوماليا halka قرعيل سيتي ناقبشي daayarkooda koofi in loo xiray kabtanimada kooxda immigrationka inkastoo naadigan mar dambe la ciyaar bartay xulkii توبيا عباشا ديرادا وطان هورنا كوحدة اف سي دايني لا يود لعسيو كوحاها هيركا كوباد مركي ويريان كودا صفتي سدح دبقولا كولان قافو لو ديبي هوغان كنسا تاسو كردقان إن هذيغا ستو سو عيارتو چامبيونس ليغا تن يكون يساقال بقوليو تدواتنكي kooxda shabaab ayaa waaberigii saakay kulan ay la ciyaareen naadiga CID da Muqdisho shabaqa soo taabtay laba jeer ciyaar soo gashay 9 subaxnimo xilliga geeska Afrika kooxdan takbiirta ku gashay ciyaarta ayaana ku bilowday shaxda 3-2 xilli labada weeraryahan oo iska soo hormariyeen ay baasteen kubad holaca halka daafacyada dambe ee garbaha si kadisa uga soo xaroodeen inta la xaqiijiyay 9 laacib oo ka tirsan ciyaartoyda labada naadi ayaa macsalaameeyay horyaalka dunida sitimaankii hore ayayna ahayd markii laacibkii hore ee federaalka Saalax Badbaado isna si kadis ah seerjin jannada uga hor raadiyay gigada aadan cadde حدكتي هوري رير هولا لكي حاجة وعايس ايا هشيسكا شخصيغا لغارتي ملكيلها تي في سبورتسكا يونيفرسال احمد ابي بكر وكيلك حدكتان اياني نو حقيجين هشيسكو وقيبكا اهان دونو سيدي لاعبادان اي كو يرتاي داواشada يوتيوب كبوس جوجتا لوغا سين لها تي فيغا سموقيدا يوباهيسو لاعبادان دادا ايانا بوس كهلي دونتا كوحدا ابي بكر مادام تاجركاسي بجيها جعل وكفرح سيهاي انو هلو حدكتان وهن قلتا جيبكيسا xidiga fanka idlayare ayaa loo diiday fiisaha dalku galka Switzerland xilli laacibkan ku soo hana qaaday kabalyeeriga uu qorsheenayo inuu show ku qabto dalal kamid ah qaaradda Yurub kaamirooyinka qarsoon ayaana soo bandhigay xidigan oo dacaska iska siibaya mar uu galayay safaaradda Swiss-ku ku leeyihiin magaalada Nairobi taas oo shaki gelisay mas'uuliyiinta kiiskiisa rogrogay Galisa Sports ayaana qabta in laacibkan uu wasaqda u diidanaa safaaradda walow cadaankii uga shakiyeen argagixisa fiisa doon ah xiddigteeda albarqad ayaa jebisay iskoorka goolkulaadka beenta ee dhanka snapchat-ka laacibadan aan laysinka haysan ayaa barteeda snapchat-ka soo dhigta muuqaalo ay caruurteeda ugu tilmaamayso gaari aysan milkiyadiisa lahayn iyadoona aaminsan in dadka necab ku badan yihiin dunida ay daawanayaan snapkeeda 40 jirtan dhuunta ka heesta ayaana daqiiqado kadib dhex lugaynaysa wadooyinka Norway iyadoona nasiib darro ilowday in wax yar ka hor laacibada Fartuun Brimo ayaa dib ula midowday daayarkeedii hore ee Faisal Hanad wargeysada ka soo baxay Biana ayaa qoraya in duqdan ay aad uga fiirsatay mustaqbalkeeda iyadoona go'aan ku gaartay inay si xafidato laacibkaasi ku faraxsan in laga caawiyo mushaarkiisa bilaa xidigta reer Canada ayaana iska diiday dalabyo waali ah oo kaga imaada Altis Klaji ile ay ka doorbiday in baaca horta ay dib ula midowdo haliyeegeedii hore ee Faisal Hanad iyadoona haatan ku cadaadinaysa in miisaankiisa uu sare u qaado walow isna dhankiisa suluugsan yahay culeyska xidigtiisa taageerayaal badan oo isticmaala baraha bulshada ayaa ku maadeystay xidiga Habi Khaliif markii Facebook Live uu isticmaalayay si la mid ah Snapchat-ka 40 jirka sida wanaagsan ugu hadla lahjada Scottishka ayaan isku xabeejinaya tiro aan ka badnayn 60 qof oo online ah xudur news ayaana qabtay in xilliga Facebook la unkayo uu wiilkan iskaabulnimada ku raagtay uu safar uga maqnaa Muqdisho walow jariiradaha qaar ay qorayaan in laacibkan kaamirada ka jecel shaqadiisa uu leeyahay astaamo uu uga saramari karo xidiga rikoodkaas heesta ee qaaqaan kaas oo Facebook ka soo muuqday in ka badan xidigaha kale
joogdheraha kooxda SNTV Cabdicasiis Afrika ayaa isku dayay mustaqbalka inuu buuxiyo booska Daahir Isbitaal konton jirkan ku caanbaxay wareysiyada qasabka ah ee laga sameeyo kooxda qaab ciyaareedkeedu liitay ee shabaab ayaa bartiisa Facebook soo dhigay shalayto sawir xidigaha kooxda Damujadiid Mahad Salaad iyo Odowa isagoona ku tilmaamay kuwa faraxsan xilli taageerayaashoodu dhibtoonayaan cadaada Sports ayaana ku waramaysa in mas'uuliyiintan ay shaxaadka Sportska u diideen laacibkan inta dhaxa u weyn sawirkan idin muuqda ayaana ahaa mid kabtanadan ay safar xal raadina kaga soo laabteen ciyaartii derbi mudug ee barbaraha ku idlaatay markana u diyaar garooba xubintani baafinta waxaa la baafinayaa xildhibaan Xoosh Jibriil markii cid ugu wardambeysana wuxuu xariiftan ku jiifay guriga guura uun laaye ee ku yaala magaalada Nairobi haddaba cid allaali cidii aragta duqaasi aan dhigin dhalada waxaa laga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xafiiska Professor Jawaari haddii uu codsigeena yareystana waxaad u sheegi kartaa in Cabduuli Gaas xildhibaanimo u soo xuli doono isaga saxaafadda muuqiisa siin doone tababarihii hore ee xulka qaranka Cabdiqaasim Salaad Xasan markii cid ugu wardambeysana wuxuu farmason uusan isu muujin kula dagaalamay kooxdii Cali Maxamed Geedi haddaba cid alaaliye cidii aragta duqaas dejiya shaxda kooxooseedkiisa waxaa laga codsanayaa inay inoo soo wariyaan naadigu ka taageero horyaalka dalka ama waxaad u geyn kartaan gabar reer galbeed ah bal inuu salaanta ka qaadiyo in kale inaga fikirkiisa maskaxiyan cabiran doonee intaasayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeeni kaftanka Sportska waxaana si wada jir idinkugu talantaalinayay Cabdiqaadir Baasi waliba aniga Luul Jaalwa halku dhiga barnaamijkeenuna waa lagu xanto lagu xustaya ka horeysa intaan dib dan barnaamij ceenkan oo kala ka u kulmeen waanigii boos oo idin leh gaashaankii noloma keeno gabagabada heesta barnaamijkuna waa dood ban aan idin kala baxo fanaanada codka baxsan ee xawakeen iyo waliba dooqii wada jirka ah Nuurani Mukhtaar from Finland iyo waliba Abuukar Xasan Cabdilaahi from Germany daawasho wacan